gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale iyo Nuur Ibraahin Mahad Allah ayaa ka soo hormuuqday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyagoo la xiriirinaya qarax uu ku dhintay Allah u naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi taariikhdu markii ay ahayd 19 bishii afraad ee sanadkan iyo kamid ahaanshiyahooda maleeshiyada Al-Shabaab. maxkamadda ayaa ugu horreynba u jeedisay eedaha loo haysta labada eedeysane waxaana fursad loo siiyay in ay ka jawaab celiyaan eedaha ay soo diyaariyeen xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida. waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa in aad la shaqaysaan kooxda Al-Shabaab iyo dil bareer ah. eedeysanaha koowaad Nuur Ibraahin Mahad Allah waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa in aad adigoo ka tirsan kooxda Al-Shabaab aad qarax miino geysay degmada Maxaas qaraxaas oo aad gelisay kuna qarxisay maqaayad uu fadhiyay marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas 19 bishii afraad 2019 dembigaas oo ka dhacay degmada Maxaas. eedeysanaha labaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa adigoo ah gudoomiyaha degmada Maxaas in aad xiriir la shaqayn ah la lahayd kooxda Al-Shabaab isla markaana aad lahayd abaabulka in eedeysanaha koowaad uu qarax soo geliyay degmada Maxaas kuna qarxiyay marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkaagii amniga siyaasadda ee degmada Maxaas 19 bishii afraad 2019. markaatiyaal afar uu ku jira dhibana ayaa la dhageystay waxayna dhamaantood maxkamadda ka hor sheegeen inta ay ka og yihiin kiiskan iyadoo si isku mid ah su'aalo u weydiiyeen dhinacyada dacwadda. qareenka gudoomiyihii degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa dalbaday in la siiyo fursad dheeri ah oo ay kaga jawaabi karaan eedaha la xiriirinayo. Nuur Ibraahin Mahad Allah oo ah eedeysanaha koowaad ayaa ka hor sheegay maxkamadda kaalinta uu ku lahaa qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. marka habeennimadii uu soo dhaafay wuxuu yiri yaa u dhiilaha in la wacay yaa u geeyaa markaasuu nima ku soo dira nin aan ku soo dira ilaaha nin socda yimid asigana wuxuu yiri waa gudoomiye xanal hadlin asmayuuna kula hadlin 29 bishii tagta ayaa xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee degmada Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale kadib xilka qaadis uu ku sameeyay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda waxa uuna u sheegay dhinacyada dacwadda in dib la isugu soo noqon doono iyadoo la tixgelinayo codsiga qareenada. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.